dhigs wax ku soo socotay si anta ka dareemaysaan ama dadka wave-ka yaqaan oo kale dhigs soo dhaqaaqday corrective inta ka gashay waxa dhahaa hal impulse isku noqon okay dan impulse ay dhaqaaqday dan insha Allah corrective soo laabatay dan insha Allah waxa ka rajeynaa insha Allah next impulse insha Allah ka rajeynaa hadda bilowday oo ah impulse kan inta ka bilowday mid u dhigma insha Allah lacagta inta ka bilowday marka okay qofkii dhahaya marka dhigs way sell waaye as fundamentally ahaan iyo wave ahaan ama structure ahaan bo dhigs waa jeedada waa buy okay marka waxay leedahay number cayiman ay gaari karto numberada cayiman marka waxa jirto hadda November soo socoto ama October ka dhiman lacagaha dollarka aad muhiim ugu tahay sababta maxaa waaye doorashada Mareykanka way jirtaa sidoo kalena waxa jirto NFB-gan uu soo bixi doonaa bisha koodeeda sidoo kale CPI-gan uu jiraa sidoo kale qolada Fed insha Allah way kulmi doonaan bisha 7deeda insha Allah okay marka dhammaan xogtaas oo dhan lacagta dollarka muhiim u tahay okay xilligan la taagan yahay laga soo bilaabo December ama December soo dhaafay laga soo bilaabo lacagta DXY waa lacagta ugu awoodda badan lacagaha ee hadda ay jirta lacagta ugu awoodda badan hadda awoodda haysato waa lacagtii hadda jirta waa sanadku wuxuu ka kooban yahay waa 4 bilood leh 4 la soo dhaafay ama 4 hadda ugu jirto ilaa December laga gaalayo waxaan rajaynayaa insha Allah DXY in ahaato wiil lacagta ugu awoodda badan structure iyo fundamental ahaan laftiga kale marka DXY hadda maxaa ka possible ah marka okay hadda DXY waxa ku soo dhaqaaqday impulse ku soo dhaqaaqday insha Allah impulse ku soo dhaqaaqday impulse maxaa ku xiga marka ani impulse waxa ku xiga ani corrective from hadda inta waa impulse maxaa soo qsamay corrective marka maxaad sugaysaa marka waxaad sugaysaa corrective la mid ah kan dhawaa ama dheer okay waxa laga yaabaa hadda new high keento oo lisaas sax ku socoto ay corrective soo gasho qaab sida ay noqoto then insha Allah ama qolada Fed-ka kulmaaya ama masal election ka soo baxa Mareykanka natiijadiisa insha Allah waxa la yaabaa inuu wali awood u sii yeelo oo sii xoojiyo insha Allah waxa ay sheegi doonaan number cayiman ay gaari karto ilaa laga gaarayo marka ilaa ama ay gaari karto ama ay taaban karto numberadaas insha Allah ka suganaa reaction ka suganaa okay lacagta dadka sameynaysa marka wax seela ama wax baaya numberada ay sheegi doonaan ayay ka sameyn doontaan insha Allah qofka insha Allah meel ka qorto okay let's go with for our numberka ugu soo horeeyo lacagtan ay gaari karto waa okay marka ugu soo horeeyo lacagtan ay gaari karto waxa waaye waa 1.04 okay 1.04 okay على numberka 04 kan inay isbuucan gaarto waa the possible number shan ay gaari karto second number waa 1.105 ay isku raacdo insha Allah okay 1.05 okay hadii aan calaamadeyno before lacagtana ku daahi doona sababta lacagtana hadaa falaqaysid ka dhiganta adoo suuqa inta badan falaqiyma okay okay 1.06 1.05 105 105 104 okay numberka ugu dheer ay gaari karto asleeya yani ahaan way gaari kartaa waa numberka 110 insha Allah okay 110 ilaa 109 agas insha Allah okay 110 insha Allah okay DXY inta number meesha ku qoray ayay reaction ka sameyn doontaa marka okay hadda numberka 04 taabato correct ka gashatay ana meesha correct ka gasho waxa ku xiga 105 correct ka gasho 106 ana tama haygaas qaadana ugu soo ay gaari karto maxaa waaye waa 100 okay waxa laga yaabaa inta ilaa sanadka dambe bishii saddexaad meelahaas waxa laga yaabaa in lacagtan ay ku gaarto ilaa aagas then insha Allah impulse aan ka bilowdo kiiska insha Allah inta ka keento then ay gaarto minimum insha Allah ay taabato 98 ama waxa laga yaabaa half year kala dhaxaysa insha Allah ilaa sanadkan sanadkiisa kala xilligan oo kale lacagtan dhigso in meelaha marayso insha Allah waa awoodooda soo daciifay ugu laabana marka dib ugu laabana fara warkay marka waxa dareemaysaa last year 103 hada fiirisid oo kale ama 103 hada fiirisid lacag maxay ka sameeyay 103 hada fiirisid lacag corrective ka gashay okay 104 hada 102 hada fiirisid maxaa ka rajaynaysaa hada sidoo kale corrective ka gashay hada maxaa ka rajaynaysaa marka ana time ay 104 tagto yaala in corrective marka waxa la mid ahaan doona
ama wax la mid ah sidaan camal oo yar oo la mid ahaan doonaa ama wuxuu ahaan doonaa mid oo ballaaran oo weyn oo ahaan doona inkastoo ku filaan doono waqtigaas dan insha Allah xarsiin wactaan all the way marka dhigis waay waxay isku soo dhamaanaysaa dhigis waay jaadeedu maxaa waay waa pi insha Allah okay